kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka kani waa jacaylkayga. Xalqado badan ayaad nagu leedihiin, marka waxaan rajaynaynaa caawa ilaa beri inaan soo gabagabayno oo qeybta afindiga aan dhaqsi gaarno. Markii u dambeysay waxaan ku joojinay xalqada 418. xalqadaasna waxaa lagu arkay Rutraakash oo guursaday gabar lagu magacaabo Saaniya oo taxanaha soo gashay, Bareeshana ka carootay kana tagtay goobtii. Haddaba xalqadani ama muuqaalkan waxaan ku falanqeynaynaa 4 xalqadood anagoo ka bilaabayno xalqada 419. waxay ka bilaabanaysaa xalqadaasi Rutraakash oo murugaysan soona xasuusanayo hadaladii uu ku dhahay Bareesha markii ay hortaagneyd, misna uu ku lahaa Saaniya anigaa guursaday, Saaniya waa xaaskayga. sidoo kaleetana waxaa soo xasuusanayaa Arman hanjabaadiisii markuu Arman dhahay Bareesha qalbigaad ka dishay, xaaskayga dib dambe agteeda kuguma arki karo. beentii uu sheegay ayuu markaasi ka qoomameynaya. Rutraakash wuxuu dhahayaa Bareesha igaraale noqo, kaligiisa isla hadlay wuu murugaysan yahay. wuxuu dhahayaa wax walba waxaan u sameeyey wiilkeeni Saaraanshe sidaan ku heli lahaa, gabadhan Saaniya ahna sidaas ayaan u guursaday, goordhowna waa heli doonaa. waxay ii sheegi doontaa halka uu Saaraanshe joogo ii ahaana meeshay ku dhowmaaleysanayso. markaan Saaraanshe helana hortaada ayaan imaan doonaa anigoo Saaraanshe wada. aniga adiga iyo Saaraanshana nolosheeni hore ayaan ku laabanaynaa. sidaasuu dhahayaa Rutraakash. dhinaca kaleeto Rutraakash wuxuu wacad ku maray inuu Saaniya wax ka sheegsiiyo. iyadii ayuu markaasi iyadaaba u imaanayso oo dacwo ah. waxay leedahay hooyadeed ducada si fiican uma sameynayso, soo dhaweyn fiican iima sameyn iyo hadalla caynkaasa. wuxuu dhahayaa hooyaday xagga intaad iga dhigtid waxaad ii sheegtaa Saaraanshe ah. waxay leedahay hadeer Saaraanshe kama gaarna sheekadiisa, aniga adiga hadeer ayaan isguursanay, habeenkeeni aqalgalka ayaa inoo bilaabanaya, gudaha soo gal. wuxuu dhahayaa waad ogtahay sababtan kuu guursaday, shuruud ayaad igu xirtay, shuruudaasoo inaan ku guursado kadib aad ii sheegaysid Saaraanshe halkuu joogo. hadeer waxaan kaa doonayaa inaad ii sheegtid wax walba. waxay leedahay ha iswaalin, haddii aad igu qaylisid mar kaleeta ama aad i qasabtid waxaad ogaataa weligaa kuma sheegi doono Saaraanshe meesha uu joogo ii ahaana ciwaankeeda kuma siin doono, isdeji. markaasuu Rutraakash wuxuu niyadii ka leeyahay intaan Saaraanshe ka helayo naagtan inaan sasabto waan ku qasbanay. muuqaal xusuus baana la tusaya qaabkii uu ku guursaday Rutraakash ninka gabadhan Saaniya siduu ku guursaday ayaa muuqaal xusuusna lagu tusayaa. wadaadkii wax mehirinayay ee mandarka joogay ayuu lacag yar siiyey. wuxuu dhahay aroos been ah oo fake oo bog ah oo waxba ka jirin waa inaad qabataa, ma doonayo si rasmi inay xaaskayga u noqoto haweeneydan. wadaadkiina wuu aqbalay, lacagtii ayuu qaatay, sidii ayuu arooskaas beenbeeneyda ah oo ugu sameeyey. Saaniyana waxay u malaysaa aroos rasmi ah iyadoo doonayso inay ka argoosato Bareesha. kuxmeyn Bareesha ayay Rutraakash u guursatay. haddaba ninkan Rutraakash ahna dulqaad ayuu muujinayaa. dhinaca kaleeto gabadhii Bareesha way murugaysneyd. Arman ayaa daawo siiyey. abtigii wuxuu dhahayaa wiilkaygiyo wajigaada muruga ka muuqatay, maadigii Bareesha ayaa isdagaalay. Arman wuxuu dhahayaa maya, Rutraakash iyo Bareesha ayaa isdagaaleen, wax walbo xagga ka dhacay ayuu markaasi Arman u sharaxayay abtigiisii. markaasuu abtiga wuxuu dhahayaa Rutraakash uma qalma Bareesha, adiga u qalantid waa inaad Bareesha gacanta ku dhigtaa, sidoo kaleetana aad hantisaa gabadhaasi. wuxuu kaloo Arman abtigiisa u sheegayaa arintaasoo abtiga wejigiisa aad naxdin ka arkaysid. dabcan wuxuu u sheegi rabay gabadhii Saaniya ayaan xagga kusoo arkay ayuu dhahay. dhinaca kaleeto waxaana la tusaya gabadha Bareesha oo soo xasuusanaysay dhacdooyinkii u dambeeyey, wayna ooynaysaa. markuu Rutraakash dhahay Saaniya waa xaaskayga, markaasay Bareesha waxay is leedahay Rutraakash waa beentiisa, sababtoo ah muddo 6 bilood ah gabadhan muusan aqoonin lamana soconin. macquul ma ahan, waxbuu qarinaya. wejigiisii siduu indhaha kaga dadbaayay ayay soo xasuusanaysaa. markaasay is leedahay waa inaan baaritaan sameeyaa. waxay wacaysaa Bantii oo Rutraakash saaxiibkiisii ahaa. waxay leedahay ma ogtahay saaxiibka inuu guursaday gabadhii Saaniya ahayd. Bantii wuu naxayaa markuu arrinkaasi ogaado. wuxuu dhahayaa macquul ma ahan, siduu ku guursan karaa aniga wax walba soo ogaanay ayuu dhahay Bantii.
gabadhii ahayd Bareesha waxay is leedahay Rudrakesh saaxiibkiisii qaaska ahaa Banti ayuuba arooska xitaa ma oga kamana warhayo arrinkani. Tani waxay ka dhigan tahay Rudrakesh inuu cadaadis saaran yahay, danna ay ku kaliftay wax walba uu sameynayo. Anigana inuu wax iga qarinayo ay wax qaldan yihiin waan u jeedaa. Waan ogaan doonaa bay dhahaysaa Bareesha iyadoo markan usoo ambabaxayso dhanka iyo gurigii Rudrakesh. Dhinaca kaleeta Banti wuxuu la kulmayaa Rudrakesh intuusan la kulmin ka hor. Gabadhii Saaniya ahayd waxay sameynaysaa qolkii Rudrakesh sariirtiisii jiifka ahayd ayay rabtaa inay seexato habeenkaasi. Rudrakesh ayaa canaananaya, iyadana booq ayay bilaabaysaa. Waxay leedahay aniga xaaskaada ayaan ahay, xaq baan u leeyahay inaan seexdo sariirtaada. Haddii aad faaqa bilowdid amaba aad isku daydid inaad aniga ila dagaashidna waxaad ogaataa in markaasi aanan kuu sheegi doonin halka uu joogo wiilkaadi Saaransha. Ninkii Rudrakesh uu isdejinayo waxaan leeyahay inaan dulqaad muujiyo inta aan ka ogaanay Saaransha. Gabadhan waa inaan sasabtaa, hadal qabow ayuu kula hadlaya. Maalinkii xigay Banti wuxuu la kulmaya Rudrakesh wuxuu dhahayaa maxay tahay gabadhan aad gursatay, Bareesha qalbigeeda kama nixaysid miyaa? Markaasuu Rudrakesh wuxuu dhahayaa aroos rasmiya ma ahan ee waa aroos bog ah. Dantayda markaan ka gaaro oo ii sheegtaa Saaransha halkuu joogana nolosheeda waan ka saagiri doonaa. Gabadhaas waxba ha ka walwalin. Gabadhii Bareesha ahayd waxay u imaanaysaa Maam Sharda, wax walbay u sheegaysaa. waxay leedahay Rudrakesh wax buu qarinayaa, waxa uu qarinaya inaan ogaada ayaa muhiim ah. waayo suurtagal ma Saaniya inuu 6 bilood garanayay misena uu la socday Deepika ayuuba guursan rabay. Marka Rudrakesh been buu sheegayaa, wax walbana waxaan ku ogaaday siduu indhihiisa iiga dadbayay, indhaha wuu ii saari waayey, wax buu qarinaya bay leedahay. Markaas Maam Sharda waxay leedahay haddiiba uusan gabadhan 6 bilood uusan garanaynin maxay tahay sababta ku kalifi kartay inuu hadeer guursado waliba degdeg. waa inaan ogaanaa arrinkaas ayay iyadana dhankeeda dhahaysaa. Waxaa imaanaysa Saaniya waxay leedahay gabarye maxay tahay sababta nolosha Rudrakesh uga bixi laadahay, adiga ma xishoonaysid miyaa? Xitaa haddii aan markaasi Saaransha ee Rudrakesh aniga aan guursaday waxaa ku daba dhigay aniga gurigan hadeer la iga soo guursaday oo la ii soo guuriyay. Ma ahan inaad adiga mar walba imaatid. qaylay bilaabaysaa gabadhii Saaniya ahayd. xalqadana meeshii ku dhamaanaysaa. waxaan gudagelaynaa xalqada 420 waxay ka bilaabanaysaa Saaniya oo bahdilaysa gabadhii ahayd Bareesha. waxaana dhahaysaa adiga haddii aan ku ciirinay misena aad ogaatay runtaasoo ah in aniga iyo Rudrakesh aan isguursanay, mawlii waxaad daba joogtaa Rudrakesh, ma xishoonaysid miyaa? gurigiisa ayaad imaanaysaa, orod wax uma xishoota ayaa tahay, meeshan isaga tag ayay dhahaysaa. aad bay ugu qaylinaysaa. gabadhii Bareesha ahayd meesha ayay sii joogaysaa. Saaniya waxay leedahay dan kalaan leeyahay mooye si fiican ayaan kuusii jafi lahaa. Saaniya way soo baxaysaa. Arman ayay u imaanaysaa iyo abtigiis gurigoodii. Arman iyo iyada ayaa isku qaylinayaan, ileen Saaniya waaba gabadhii Arman qabay, gabadha Anfi ahna u dhashay. labadooda way isku qaylinayaan. wuxuu dhahayaa maxay tahay sheekadan cusub aad bilowday iyo guurka aad guursatay Rudrakesh? waxay leedahay guurka aan Rudrakesh guursaday ikhtiyaarkaygan ku guursaday, laakiin waxaad ogaataa adiga iyo Bareesha farxad kuma noolaan doontaan. aniga ayaana markaan waxay ka dambeeyay farxadiina burburinayo. waxaad u malaysa Bareesha guurka aad guursatay inay farxad ku siinayso, buuskaygana i geli karto. lagama yaabo midaas ayay dhahaysaa. Arman wuxuu dhahayaa adiga waad i qiyaantay, noloshiidaad burburisay, gabadhiida Anfina hooyo la-aan ayaad dhigtay. yacni wuxuu kala jeedaa gabadhiida Anfi adigoo hooyo u ah gabadhaadii waad tuurtay, waad ka tagto dhahaya. marka wuxuu dhahay haddana ma waxaad doonaysaa Bareesha inaad nolosheeda burburisid? kaama yeelaya ayuu dhahaya. labadooda way isku qaylinayaan ilaa gabadhii Saaniya ahayd ee kuwa cad ku marto inay markan ka argoosanayso Arman iyo Bareesha labadaba. waxaana leedahay Rudrakesh uu ka qurux badan yahay wuuna kaa caansan yahay, sidaasaan isagu ku doortay, waana nin mudan oo gabar walba i ku riyoon karto. markaasuu Arman sii caroonaya. Saaniya goobtii way kasoo tegaysaa. gabadhii Bareesha ahayd oo kasoo tagtay iyadana Maam Sharda, maadaama Maam Sharda ay tiri gabadheedii orod guriga iska aad, Rudrakesh markuu imaada ninka ku qabsanayo wax walba. Bareeshana way soo baxaysaa.
ileen labada guri way isku dhan yihiin, daris ay yihiin, iyadoo gurigii soo gali rabto ay iska hor imaanayaan Saniya. Markaasi Barisha waxay leedahay gurigana maxaa ku keenay? Hadda leeba gurigaas ka soo tagtay. Waxaad halkan u imaatay inaad iga argoosatid. Saniya waxay leedahay ninkaadan u digayay adigana kaaga dacwoonayay. Gurigayga dambe isku imaan. Markaasi Barisha waxay leedahay bilaash ayaad isku daalinaysaa Saniya. Sababtoo Rudraka aniga kaliya ayuu i jecel yahay. Sababtoo adiga ku guursadana arrin baa ka dambayso. Arrintaasna waan ogaan doonaa ii dhaysaa Barisha. Laakiin waxaan ka xumahay adiga inuu dhib iyo xanuun uu ku dambayn doono. Waxaad u malaysaa inaad guulaysanaysid laakiin dhib baa ku dambayn doona ii dhaysaa. Saniyana waxay leedahay labadayna qofku dhib u dambeynayo waan arkaynaa Barisha. Niyadana waxay ka dhehaysaa Barisha sida dhib iyo silac uu kugu dambayn doono waxaan doonaya inaan indhahayga ku arko misena aan ku raaxaysto. Rudraka guriga ku soo laabanaya Maam Sharda ayay qabsanaysa waxay leedahay waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta aad Saniya u guursatay? Qorshaha aad damacsan tahay muxuu yahay? Maxaad qarinaysaa? Rudraka uu adkeynaya mana sheegayo wuxuu dhahayaa Saniya jacayl aanu qaban u guursaday. 6 bilood ayaan wada soconay. Waan garanayaa marka waan guursaday. Sharda waxay dhaysaa waxas ma jiraan. Barisha way imaatay murugaysanayd waxayna dareensanayd inaad sabab kaleeto u guursatay Saniya ee waxii jira noo sheeg. Barishana aan u sheegay runtii ii sheeg wiilkaygiiyo ayay dhaysaa. Isagana wuu diidaya wuxuu leeyahay Saniya waan jeclahay. Jacayl ayaan u guursaday. Saniyadii ayaa imaanayso. Waxay leedahay wiilkeeda kuma kalsoonid miyaa adiga? Maxaa dhacay farxadiisa kama talinaysid miyaa? Wuxuu ku dhahay xaaskayga waan jeclahay. Jacayl ayaan u soo guursaday. Intaas kuguma filna miyaa? Ma Barisha ayaad u doodaysaa weli? Maam Sharda waxay dhaysaa aniga hal gabar kaliya iyaan saddex u noqonaya waana Barisha cid kaleeto uma noqonayo. Waxaad doontid sheeg Saniya. Markaasi Saniya caroonaysa waxay leedahay Rudraka gurigan waan ka tegaynaa. Hotel ayaan degaynaa. Rudraka wuxuu dhahayaa hooyo xaaskayga waa inaad xushmaysaa. Marka xushmad waa inaad u muujisaa. Gurigana aad ku soo dhawaysaa. Wuu qabsay markaasuu Saniya goobtii ka soo wadanaya. Gudahii soo galayaan. Gabadhii Barisha ahayd gurigii ayay timid. Arman iyo abtigiisa way sheekaysanayaan. Abtiga wuxuu dhahayaa wiilkaygiiyo Barisha ma u sheegtay sirtan in Saniya xaaskaada hore ay ahayd barnaamijkaas ma ka dhaadhacsiisay? Arman wuxuu dhahayaa wali umaanan sheegin. Barisha ayaa meesha soo istaagaysa isagoo dhahaya wali umaanan sheegin. Markaas leedahay waxba inaad ii sheegtid looma baahno waan ogahay wax walba. Iyada hadalka qaybta hore maysan maqal qaybta dambe maqasho waxayna u malaysaa imaanshaha Saniya ee hadda timid ee idinka dacwoonaysa inuusan wali u sheegin. Taasay u malaysay. Waxay leedahay wax walba waan ogahay. Saniya way iga hor imaatay. Waxaan ii sheegtay inay aniga iga dacwootay. Intaas soo ma waxaad sheegi rabtaan. Midda kaleetana Rudraka sabab ayuu u guursaday Saniya. Sababtaasna waan ogaan doonaa. Arman furka iyo tuuraya. Wuxuu dhahayaa wali ma Rudraka ayaad rajo ka leedahay. Ninkaas meel cidla ayuu kaaga tegay. Waad u jeedaa Saniya ayuu guursaday. Sidoo kaleetana wuu ku xumeeyay. Wali isaga jeceshahay miyaa? Ninkaas dambe kama fikiri kartid. Nafsadaada inaad ka fikirtaa. Barisha waxay leedahay runtiis Arman wax walba uu sheegay. Laakiin qalbigayga wuxuu ii sheegayaa Rudraka inuusan ii qayaanin. Waxaana uu sabab u sameynay. Sababta jirtaana waan ogaan doonaa ay dhaysaa. Dhinaca kaleeta Rudraka iyo Saniya qolkii markay soo galaan. Rudraka Saniya ayuu ku qaylinaya wuxuu dhahay iga foq dadka hortooda markaan joogno. Anigii adiga nin iyo xaaskiisa waan jeli karnaa. Laakiin qolka markaan soo galno ajnabi ayaan kalanahay iga fogow ayuu dhahayaa. Waxay leedahay isdaji xiriirkeena rasmi waan ka dhigi karnaa. Markaasuu dhahayaa aniga sabab ayaan ku guursaday sababtiin ilaa haddii ima sheegaysid hayii soo dhaweyn ayuu dhahayaa. Waxay leedahay ma doonaysaa wiilkeeda Sanasha meesha uu joogo inaan kuu sheega ama ma doonaysid? Markaasuu isdejinaya. Waxay leedahay ugu horreyn waa inaad i wadaa shopping ii soo samee waxaan raba ii samee kadib wax walba waan kuu sheegaya. Niyadda wuxuu ka dhahayaa intaan wiilkayga Sanasha ka ogaanaya halka uu joogo naagtan wax walba ii rabto inaan u sameeyaa. Xalqadana meeshay ku dhamaanaysaa oo xalqada 420aad waxaan guda galaynaa xalqada 421 waxayna ka bilaabanaysaa ayadoo la wada quraacanayo ayay gabadhii Anfi ahayd waxay dhahaysaa waxaan rabaa inaan gabar saaxiibteeda ayaa xafladeedii dhalasho u dabaaldegayso hadiyad inaan usoo iibiyana waan rabaa anagana inaan shopping soo samaysanana waan rabaa oo Barisha waad i raacaysaa.
Barasho xoogaa diidma dheer ayay sameynaysaa, laakiin Arman wuxuu dhahay dhammaanteen waan bixinaa shopping ayaan soo sameysanaynaa. Barashana way ogolaanaysaa markii dambe. Ugu dambeyn Arman qof buu taleefanka kula hadlaya wuuna dhoola cadeynaya. Abtigiisna wuxuu weydiinayay sababta uu dhoola cadeynayo qofkuu la hadlayay. Ninkii Rudrakash gabadhiisa ayuu keenay meeshii shoppingka ay ka sameysan lahaayeen, ileen iyada soo qasabtay. Isla goobtaasi waxaa imaanayaan Arman, Baresha iyo gabadhii Anfi ahayd. Waxaa kaloo imaanayaan Baresha waalidkeedii, oday GPS iga waliba hooydeed. Aad bayna u farxaysaa. Armanna wuxuu dhahay dadkii aan la hadlayay igay ahayn, waxaan ugu talagalay Baresha inaan kaga farxiyo. Halkaasi Baresha hooydeedii Abid kula kulmaysaa. Hooydeed ayay wax walba u sheegaysaa waxay dhawaan dhacay. Mama Fasuda aad bay u yaabaysaa, wayna neexaysaa. Waxaana leedahay Maama Rudrakash ayaa guursaday Anfi, aan dhahnay gabadha Saniya ah. Markaasi Baresha waxay leedahay haba guursada ma xume, sabab buu u guursaday, laakiin sababtuu guursaday waan ogaan doonaa, waayo waxaan dareensanahay inuu i jecel yahay Rudrakash. Rudrakash taleefan buu ku hadlayay, gabadhii Saniya way dhibaysaa. Waxay leedahay labiska ii dooq. Saari ayay tusaysaa, wuxuu dhahay wuu qurux badan yahay. Haddana dhowr saari kala nooc ah iyo shaati isaga ugu talagashay tusaysaa. Wuxuu dhahay wuu qurux badan yahay. Markaasay leedahay ciyaarta iga dhaaf, taleefanka jooji ee wax ii dooq, haddii kaleeto kuuma sheegayo saaransha meeshuu joogo. Markaasuu ku qaylinaya, wuxuu dhahay miyaad ii hanjabaysaa, buuqa iga dhaaf. Haddii aan saarigan kuu dooqo, mid casaan ah ama guduud ah ayuu u dooqaya. Wuxuu dhahay waa dooqayga. Midkii ayay soo qaadanaysaa si u xirato. Gabadhii Anfi ahayd ayaa iyadana hooydeed Baresha saari cusub u dooqayso. Bareshana saarigii inay isku soo tijaabiso ayay qolkii aadaysaa. Gabadhii labiska dadka u gudbinaysay ayay la hadlayaan Baresha iyo weli Saniya. Waxay dhahayaan gudaha markaan galno labiska noo soo dhiib. Korontadii ayaa tagayso. Gabadhii meesha ka shaqaynaysa way qaldamaysaa. Labadii saari ayay u kala bedelaysaa Baresha iyo Saniya. Rudrakash saarigii uu Saniya u dalbay Baresha ayaa xiranaysa. Markay dibadda u soo baxaan, Saniya dagaal ayay bilaabaysaa. Waxay leedahay saarigan aniga iska leh oo Rudrakash ayaa ii dooqay, soo siib. Bareshana wax Rudrakash ayay indhihiisa fiirinaysaa. Markay aragto Rudrakash inuu arrinkan ku qanacsan yahay saariga ay xiratay, ayay diidaysaa Baresha inay siibto. Waxay leedahay ma bixinayo, aniga ayuu Rudrakash ii dooqay, dooqiisaani xirtay, warka meeshuu ku dhan yahay. Saniya waxay qabsanaysaa Rudrakash. Waxay leedahay maxaad naagta ula dagaali weysay? Rudrakash wuxuu dhahay laba dumar oo isdagaala maxaa dhexdooda i geliyay. Haddaba Saniya waxay la dagaalaysaa haddana gabadhii meesha ka shaqaynaysay. Baresha hooydeed ayaa arkayso, waxayna isku dayaysaa inay dhex gasho. Haddana Saniya waxay la dagaalaysaa Baresha hooydeed. Waxay soo dhex galaysa Baresha, waxaana leedahay hooyadii haddii aad mar kale ku qaylisid ama aad aflagaadaysid, adiga way iska jir bay leedahay. Rudrakashna wuxuu canaananaya ama ku qaylinaya Saniya. Wuxuu dhahayaa aniga maadaamaan ku jeclay, taasi macnaheedu ma ahan inaad markaasi aad la dagaashid dadka waaweyn. Taasina ma ahan wax loo dulqaadan karay. Meeshii kasoo tag. Gabadhii ayuu soo jiidayaa. Baresha hooydeed way yaabaysaa. Baresha waxay leedahay Rudrakash weli uu jecel yahay, wax walbana way cadaan doonaan. Arman xitaa wuu la yaabay, mar buu qabsanaya isla meesha intay joogeen. Wuxuu dhahay ma weli Rudrakash ayaad ka fikiraysaa? Iyadana waxay leedahay waxaan aaminsanahay Rudrakash inuu aniga weli ii jecel yahay, gabadhanna goorkeedana eedan ku kaliftay, waayo indhihiisaan uga jeeda siduu ii jecel yahay. Saniya si ay uga argoosato Baresha hooydeed waxay sameynaysaa shoppingkii alaab ka mid a mise shaati ka mid a iyo boorsadii Baresha hooydeed gelinaysaa. Ninkii wax xisaabinayayna wuxuu dareemayaa adeeg dheeraad ah inay wataan. Baresha hooydeedna adeeg dheeraad inay boorsadeed ay ku qarsatay. Baaritaan ha la sameeyo iyuu dhahayaa. Xalqadii meeshii ku dhammaanaysaa waa xalqadda 421. waxaan guda gelaynaa xalqadda 422 oon muuqaalkan kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa la qabanayaa Baresha waalidkeedii, boorsooyinkooda hala baara ayaa dhacayso. Baresha, Arman iyo gabadhii Anfi iska baxeen, waxba ma oga iyaga. Goobtii xafladii ayay aadeen oo Anfi saaxiibadeed ay ku caawinayeen. Anfina hadiidii ay saaxiibadeed usoo iibisa ayay siinaysaa. Baresha iyo Armanna way la joogeen. Halka Baresha waalidkeedii baaritaan lagu waday, booliskii ayaa imaadeen. Rudrakash uu yaabaya ilaan bannaankuu joogay ama dibadda.
meesha shoppingka lagu sameysanayo. Waxaan isdhahay booliska talow maxay meesha u yimaadeen, haddana ma uusan sii tixraacin. Waa la xirayaa barashaha hooyadeed iyo aabaheed. Hooyadii ayaa isku dayeysay gabadhii barashadeed inay soo wacdo, laakiin barashada taleefankeedii gaarigay ku ilowday. Haddaba sidii ayaa labadoodii lagu xiray. Booliskii ayay la hadleen, waxay dhaheen qalad ayaad fahamsantihiin, anaga waxba maynan xadin. Haddii aad doontaan dharka ama siyaadada waxyaabaha adeega siyaadada boorsadayna lagu riday waan iibsanaynaa, laakiin waa laga diiday. Waxaa la leeyahay sharciga ayaa sidaas ah, xatooyo way arrinkani waana la idin xiraya. Sidii ayaa labadoodii lagu xiray. Saaniyana way argoosatay, Rutraakashna meeshii ka soo waday iyadoo ka qarisay wax walba gudaha ka dhacayn. Dhinaca kaleeto Rutraakashii Saaniya waxay imaanayeen gurigii. Saaniya ayaa kushiinkii galaysa, waxaana leedahay cuntan kuu sameynaya. Waxayna leedahay 40 daqiiqo ii qaadanaysaa inaad iga warsugtaa. Isagana waxaan yidhi iska dhahaya arrinkan fursad ayaan u arkaa, intay cuntada karinayso inaan gudaha galaa oo laabteeda aan baaraan si aan wax u ogaado. Barasha mar dambe ayay arkaysa taleefankeedii, waxaana ka qabanayay markii hooyadeed oo soo wacday dhowr jeer aragtay. Way ku celisay, isbitoorihii ayaa ka qabtay, wuxuuna dhahay hooyaday aabaa way xiran yihiin. Barasha arrinkii markay maqasho way soo ordaysa, Arman ayaana soo raacaya. Saldhiggii booliska markay imaadaan ayaa wax walba loo sheegaya. Markaas isbitoorihii qabsanaysa waxay leedahay adigoo kaamirada qarsoon arkin oo fiiranin sidii hooyaday aabihii ku soo xirtay, waayo kaamirada qarsoon ayaad wax walba ka ogaan kartay. Kaamiradii wuxuu dhahay isbitooraha wadadii kusoo jirta waa la ii soo wadaa. Kaamiradii marka la keenay ayay wada fiirinayeen, waxayna arkayeen Saaniya inay markaasi dharkii ku riday boorsadii barasha hooyadeed. Markaasi Saaniya iyo barasha waxay leedahay Saaniya hooyadii ayay ka argoosanaysay, sababtoo hooyadii waxay celisay Saaniya oo dharbaa xirabtay gabadhii meesha ka shaqaynaysay. Waxaana istiray duqdanka argooso, sidaasayna falkan ugu dhaqaaqday. Isbitoorihii raaligelin ayuu bixinayaa, wuxuu soo fasaxaya barasha hooyadii aabaheed, waxaana dhahaya Saaniya ayaan soo xiraya. Barasha waxay leedahay aniga ku tusay gurigeedii, soo baxay soo raac, haddeer soo xir. Way soo baxayaan, Saaniya gurigeedii ayay imaanayaan. Ninkii Rutraakash ahaa baaritaan ayuu waday. Saaniya way u imaanaysaa, waxay leedahay maxaad samaynaysaa? Wuxuu dhahay waxaan doonayay inaan ogaado saaran shaalkoo jooga. Waxay leedahay haddeer kuuma sheegi karo. Wuxuu dhahay ii sheeg intaan oo dhan hay silcinin. Waxay leedahay waad ogaanaysaa, laakiin haddeer ma ahan. Kadibna booliskii iyo barasha ayaaba imaadeen. Hoos markay usoo degtaan Rutraakash wuxuu dhahay maxaa dhacay? Barasha waxay leedahay xaaskaada sidaas ayay samaysay, hooyadii aabihii ayay xirtay, falkaas ayaynay samaysay, sababtaas ayayna ku kaliftay inay u samayso. oo hooyadii gabadhii kale iyo dharbaaxays ayay ka celisay si hooyadii uga argoosatana xatooyi ayay dusha u saarisay. Saaniya waxay leedahay barankii ayaan la ciyaarayay, dhab igama ahayn. duqdaasna iyadaa marka hore iga gardarnaday oo markaas iga qaldanayd. Barasha waxay leedahay iskari maxaad sugaysaa, hala xiro gabadhani. Saaniya waa la xiri rabaa, laakiin hab ayay siinaysaa. Rutraakash waxay leedahay haddii halkan la iga kaxay oo lii xiro waxaad ogaataa dib dambe uma soo laabanayo, saaran shalku joogin kuuma sheegayo, sidaas awgeed waa inaad i badbaadisaan. xalqada meeshii ku dhammaanaysaa ayadoo Rutraakash uusan hadlin, wax dhaqaaqana uusan samayn. Rutraakash muxuu samayn doonaa? Saaniya ma badbaadin doonaa? Barasha ma la hadli doonaa si uu saarensho u ogaado? Saaniya amarkeeda ma qaadan doonaa mise shib ayuu ka dhihi doonaa? afartii xalqad muuqaalkan ku falanqaynaynin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. isla maanta xalqada kale ayaan kasoo diyaarinaynaa. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.